shacabka reer Jubbaland waxaan cod dheer iyo cod gaaban ugu baaqaynaa madaxweyne isku sheega dowladda federaalka isku sheega madaxweyne ma dhikariye waxaan leeyahay wili adeer baan ku leeyahay adeerna daa Axmed Madoobe naga dooranay asaga isma dooranin shacabkiisa jecel ma rabitaankeena noo diidan tahay banaanbaxyo waaweyn oo ka dhana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka socdo magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland awaamiir sawirada madaxweynaha looga fujinayo Kismaayo oo soo baxay iyo wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubbaland ayaan muuqaalkani ku eegi doonaa daawadayaal laakiin intaan u guda galin muuqaalka like sara si share garay oo la wadaag saaxiibada bogaana follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid aynu ku bilownay daawadayaal awaamiir ka dhana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay ka dhaqan galeen magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland gudoomiyaha amba duqa magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland Umar Abdullahi Maxamed ayaa waxa uu soo saaray awaamiir sawirada madaxweynaha jamhuuriyadda looga fujinayo goobaha ganacsida madaarista waxbarashada iyo sidoo kale xafiisyada ay ku howlgalaan madaxda dowlad goboleedka Jubbaland taas oo ka dhaqan gashay maanta magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland waxa la arkayay qaar ka mid ah sawirada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dadka qaarkood ay ku jiidayeen magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo dhulka ay tuuran yihiin qaarkood ay ku karsoconayaan sawirada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud duqa magaalada Kismaayo ayaana amarkii uu soo rogay ee ahaa in sawirada madaxweynaha laga fujiyo goob walba oo ku taala magaalada Kismaayo ee halkaas ka dhaqan galeen waxaana cirka isku shareeraya xiisada u dhaxaysa dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo banaanbaxyo ka dhana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana looga soo horjeedo haatan ay ka socdaan magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland dadka ka careysan tallaabooyinka dowladda dhexe ee Soomaaliya ee dhanka Jubbaland ay u qaaday ayaana ku hadaaqayay hadaladani ka dhanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dowladda dhexe hadaladani ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya awaamiir ka dhana maanta lagu soo rogay magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland isla markaana tallaabooyin ka dhana dowlad goboleedka Jubbaland maanta ay qaaday dowladda dhexe oo ciidamo fara badan geysay deegaanka Ras Kamboni oo dowlad goboleedka Jubbaland ay ka howlgasho ciidamadaasi oo kaabaya ciidamo maalmihii la soo dhaafay dowladda federaalka Soomaaliya diyaarado kala duwan ay ku geysay gobolada Jubbada Hoose iyo sidoo kale Gado isla markaana guluf ka dhana dowlad goboleedka Jubbaland halkaasi loo geeyay waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horay u sheegay in uu diyaar u yahay in doorasho qof iyo cod dalka ay ka dhacdo isla markaana wax kale uusan aqbali doonin iyadoo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe tilaabooyin ka dhana hadalka madaxweynaha uu qaaday isla markaana doorasho dadban uu qabsaday taa oo keentay in ciidamo fara badan dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dejiso deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland dhanka kalena warar hadda soo dhacay ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo fara badan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe
uu ka diray magaalada Kismaayo dowlad goboleedka Jubbaland isla markaana uu diray deegaanka Ras Kamboni ay isku dhiibeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya in ka badan 500 oo askari oo ka tirsanaa ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa isku dhiibeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya mar walbana waxa kordhaya isdhiibitaanka ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay noo xaqiijiyeen in ciidamo kale ay la soo xiriireen kuwaasi oo diyaar u ah inay isku dhiibaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana aysan diyaar u ahayn in dagaal ay kala hortagaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan deegaanka Ras Kamboni daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada sidoo kale dhanka iyo commentiga waxaad inagu la wadaagtaa aragtidaada waxa ay kula tahay talaabooyinkani kala duwan ee isdiidan ee ka socda dowlad goboleedka Jubbaland qaasatan magaalada Kismaayo